maxkamadda racfaanka gobolka Maroodijeex ayaa saaka dib xoriyadooda ugu soo celisay 20 dhalinyaro ah oo maxkamadda gobolka Maroodijeex ugu riday xukun xariga kadib markii xilaalintu ku soo ogtay dacwad nuxurkeedu inta badan ku qotomay inay isticmaalayeen maandooriyaha xabagta. dhageysigan dacwadan dhalinyaradu racfaanka kaga soo qaateen xukunkii hore uga soo baxay maxkamadda gobolka Maroodijeex oo xilli hore oo saaka ka bilaabantay halkan oo xarunta maxkamadda racfaanku ku leedahay magaalada Hargeysa. wadajirna dhageysigeeda uu goobjoog ugu hayeen mas'uuliyiinka kala socda garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka wadani, qareennada u doodaya xubno matalaya ururada maxalliga ee inta badan u dhaqdhaqaaqa dhanka xuquuqul insaanka iyo sidoo kale komishanka xuquuqul insaanka qaranka ee Somaliland ayaa waxaa cabbaara 12 duurnimo ee isla maanta ku dhawaaqay xukunka maxkamadda. garsoore Dr. Cali Soodi Diiriye, gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Maroodijeex oo isagu gacanta ku hayay isla xukunka racfaanka laga soo qaatay. maxkamadda racfaanku markii ay dhageysatay xukunkii markay dhageysatay racfaankii racfaanlayaasha ay maxkamaddu doodii labada dhinac ay dhageysatay iyagoo qareena lahaa racfaanlayaashu u doodaya iyo xafiiska xeeraalinta oo isaguna maxaan ku idhahdaa racfaansana ah. markii ay maxkamaddu dhageysatay waxay ku dhawaaqday xukun sii dayn ah, xorriyadoodiina way u celisay maxkamadda racfaanku 20 racfaanle iyadoo maxkamaddu u cuskatay xukunkeeda xeer lambar 36/2007 xeerka nidaamka garsoorka caruurta qodobadiisa 747 iyo qodobka 10aad iyo qodobka 740aad maxkamaddu waxay u celisay xorriyadooda. qodobada lagu eedeynayna waxay ahaayeen qodobada 267 xeerka ciqaabta guud iyo qodobka 3aad baragraafkiisa koobaad ee xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka oo marka horeba qodobka 267 ay maxkamadda gobolku kaga cadaan waayay. waxay kaloo maxkamaddu u tixgelisay xaaladaha gaarka ah iyo duruufaha ay ku sugan yihiin maadaama ay yihiin darbi jiif una baahan yihiin dhaqan celin laakiin aanu xadhigu xal ahayn, u baahan yihiin in bulshada dib loogu soo celiyo, in wax la baro, in aqoontooda kor loo qaado, u baahan yihiin duruufaha nololeed ee ku gadaaman iyadoo maxkamaddu taana u tixgelinaysa oo ay tahay xaakinku inuu eego duruufta qofkan hortaagan ama qofkan la eedeynayo, duruufaha nololeed, xaaladiisa dhaqaale, xaaladii uu dambiga ku galay, markan uu dambiga galay xaaladdu uu ku sugnaa, waxaasoo dhan iyadoo maxkamaddu tixgelinayso maxkamadda racfaanku xorriyadoodii bay u celisay. maanta taariikhdu tahay 7 bishii 3aad 2019. waxaa su'aal ugu weydiinaysana diyaar baanu ahay. xeeraalintuuna xukunka wax racfaana kamay qaadan, waayo haddii ay xeeraalintu racfaan ka qaadatay kagamaan hadleen miidiyaha. dhankooda waxay afaafka hore ee isla xarunta maxkamadda racfaanka gobolka Maroodijeex warfidiyaanka kula hadlay mas'uuliyiinta garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka wadani oo dhawaan u ahayd markii ay u qabteen qareeno u dooda dhalinyarada darbijiif maanta xorriyadooda u soo celisay maxkamadda racfaanka si xukunka hore uga soo baxay maxkamadda gobolka Maroodijeex racfaan uga qaataan. maxamed sidiiq cabdilaahi dhame, gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga wadani iyo sidoo kale xogayaha garabkaasi aftax siciid cabdi ayaa halkaa warfidiyaanka kula hadlay. waxaan aad noogu farxada in maanta dhalinyaradii aanu qareenka u qabanay maanta ay kiiskoodu jabo oo xorriyadoodu dib u helaan. labadii bishii labaad lagu xukumay maxkamadda gobolka Maroodijeex iyadoo xisbi ahaan iyo garab dhalinyar ahaan aanu u qabanay 2 qareen oo dacwadda maanta ku guuleystay in xorriyadooda ay helaan, iyadoo gudoomiyaha maxkamadda racfaankuna uu xorriyadoodu u celiyay 20 caruura oo runtii markii horena xukunkii ku dhacay waa mid qayru sharciya. wasaaraddii soo eedaysay ee eedaysanaan ka ahayd waxa weeye daba socotay maragga ku furaysana ay ahayd tufool xumo ku ah qaranka. wuxuu qaatay gudoomiyaha maxkamadda racfaanku door weyn, caruurtaasina waxay heleen xorriyadoodii. dhankooda waxayna halkaa ka hadlay marwaluul xasan mataan oo ka mid ah ururada inta badan u dhaqdhaqaaqa dhanka xuquuqul insaanka islamarkaana si weyn uga howlgashay qorshahan, iyo garyaqaan cumar oo ka mid ah komishanka xuquuqul insaanka qaranka ee Somaliland. caruurtu ma in la xidho oo maxay hayday xarig rabaayadoodu kuma soo noqoto daryeel bay u baahan yihiin. riboodka iyaanu soo saarnay waxaa ku jirtay in caruurtu darbijiifku ay daryeel iyo xanaano joogtaa u baahan. caruurtan waa caruurteennii waxa loo haystaa in meelo kale ka yimaadeen, mid waa agoon, waxa weeyaan family burbur bay ka yimaadeen, bafarti bay ka yimaadeen, waxa weeyaan caruurtii reer Somaliland
indhaha in layska tuuro maaha waxa weeyaan meeshan anigu baraafid sekretar ah ayaan asaasay xaruntan waxa weeyaan wax la wareegtay wasaaradda shaqada wasaaradda waxaan leeyahay muhiim ah qofka inuu meesha ka baxaa wax weyn maaha laakiin hawl weyn baa u taal wasaaradda waxaan leenahay qaranka iyagu u idmaday caruurta maadaama arrimo bulshada yihiin ugu dambeyn waxaa halkaa warfiidiyeenka kula hadlay garyaqaan mubaarig cabdi oo ka mid ahaa labada qareen ee maanta u doodayay darbijiifka xorriyaddooda dib u helay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa xukunka maanta ka soo baxay gudoomiyaha maxkamadda rafaan gobolka Maroodijeex Dr. Cali Suudi Diiriye marka xukunkaas xorriyaddoodii ugu celiyay caruurtii 20ka ahayd ee darbijiifka ahayd ee ku dhacay xukunkii cadaalad darrada ahayd 6 bilood ahayd hore ugu xukuntay labadii bishii labaad ee sanadkan maxkamadda gobolka Maroodijeex waxaad xusid mudan gudida xuquuqlisaanka dawladdu warbixin sanadeedkii ugu dambeeyay soo saartay sanadkii hore waxay ku sheegtay dhibaatooyinka iyo duruufaha ay la nool yihiin caruurta darbijiifta marka tala soo jeedin bay ku samaysay oo dawladda waxay u soo jeedinaysaa in caruurta la daryeelo oo la ilaaliyo marka waxaan soo jeedin lahaa in la qaato talooyinka ay soo jeediyeen gudida xuquuqlisaanka qaranku warbixintoodii ugu dambeysay ku soo jeediyeen isla markaana caruurta sidii loo dhaqan celin lahaa ee loo ilaalin lahaa la sameeyo arinta kale muhiimka iyadana in la wadaagayo waxa weeye ka qaran ahaan waxaanu sameyn doonaa dacwad idaari ah marka waanu ka tashan doonaa ka bacdi waxaanu wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada aanu ku furi doonaa dacwad maamul oo la xidhiidha gafkay ka galeen xuquuqdii caruurtaas ee dastuurku waajibka ku siinayay inay iyagu gutaan marka dacwaddaasaan dhawaan insha Allah iyadoo diyaarin doonaa oo iyagana ku dacweyn doonaa xuquuqdii caruurtaas ku lahaayeen ay gabeen inay siiyaan waxaa xusid mudan in dhanka kale maanta goobjoog ku ahayn dhegaysiga isla xukunka qaybo ka mid ah waalidiinta dhallinyaradooda la xidhay walow aanay telefishinka suuragal u noqon in dareenkooda ay la wadaagaan dhallinyarada ayaa dib loogu celiyey jeelka weyn ee magaalada iyadoo lagu wado in saacadaha soo socda ay xorriyaddooda dib u helaan Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV Somali Cable Hargeysa.